أنا محوها إلهي وحن كبر يا كي مسؤولية ناس كسب بحين إلهي يقدره أذن كانوا وحيد كعد سنة يا ما أنت ماشي أد مسؤولية يقول يبتين إن هذا إيجا هارنا دقنقل كده يقولي سجده يمال مريض كده إن هذا محوها إيجا شقيسان هذه اللي يراه intiinaan iyo inta kale faraha badan ee maanta fursadan aan imaanin oo aad fariintaas ayagana iga gaarsiin doontaan sida uu xildhibaan fiqi tilmaamay hawsha maanta aan qabanay waa ku meel gaar kulan weynihii xisbiga ee ugu horeeyay waa noo dhiman yahay waxa mas'uuliyadda la soo saaray ee maanta loo yimiday ee dastuurkana maxaa si ku meel gaar loogu ansixiyay waxa waaye in hawshaas loo diyaar garoobo oo mas'uuliyad lagu qabto hawshaas marka waxaan ka shaqayn doonaa sidii shirweynihii guud ee xisbiga oo heer qaran ah oo dalka iyo dibadiisa dhan looga wada yimiday oo dad maxaan ku yiraahdaa xisbiga iska leh oo yaqaano muxuu ahay doorka ay leeyihiin in meesha ay ugaga jiraan ay isku yimaadaan oo shirkaas kama dambaysta dastuurkana loogu ansixiyo si kama dambaysta ana mas'uuliyiinta loogu doorto hadii alla yiraahdo waxaan rabnaa xisbigan dawlad dhisida Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya mar walba hor u socod waay xisbigan waxaan rabnaa xisbi oo yaani horay u socon oo wixii jiray wax ku sii kordhinayo wax ku dul dhisayo hagaajinayo inuu noqdo dimuqraadiyadan rabnaa dalku in uu xukun wanaagsan oo si dimuqraadi ah oo wada jir ah oo raali laga wada yahay dalka inuu ka jiraan rabnaa si aan taas u gaarno marka xisbigeena waa inaan ka dhax muujinaa dimuqraadiyada iyo muxuu ahay kalsoonida iyo madax banaanida ra'yiga iyo dhammaan dimuqraadiyadana waxa waa maareynta masaarixda kala duwan iyo fikradaha kala duwan ee dadku ay qabaan inaan lagu kala tagin ee la maareeyo ee la isku yimaado ee la isku hayo dad mas'uuliyiin ah oo tanazul badan isu dul is ixtiraama wax isu quura adduunyadoodu maanta kaliya aanay ku kayn ee berri iyo berri dambe ee beriga ka sii dambeeya muxuu ahay u hawl qabta ayaan noqonaynaa hadii alla yiraahdo xisbigana aasaas wuxuu u taagan yahay waa intaas waxaan rabnaa maanta waxaan ka bilownay meel bannaan xisbi cusub aan jirsiinay hay'ad cusub oo qaanuuni ah oo dastuuri ah oo dalka ka jirtaan maanta jirsiinay aan bilownay waxaan rabnaa in maalin maalmaha ka mid ah inteenan aan gaarno oo aanan muxuu ahay mas'uuliyadda hadda sida aan u hayno aanan u hayn oo dad kale oo dhalinyaro ah oo cusub ay mas'uuliyadda hayaan maanta sida uu yariya xisbigu ka weynaaday oo dad aad iyo aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ku wada jiraan talada dalkana oo door uu ku leeyahay muhiim ma aha mar walba in aan muxuu ahay annaga aan istusino inaan hoggaanka dalka mar walba aan ahana laakiin waxa muhiim ah talada dalka mar walba inaan ku jirno door ku leenahay tala ku leenahay waxa jira waxa wanaagsan aan u nahay waxa liita ama laga roon yahayna inaan cili karno dhigi karno waxaan dalka maslaxad ugu jiro waxa muhiimka saas waay dad tashaday inaan noqono isku aragti ah isku ra'yi ah aasaaska ama gundhiga ra'yigooda iyo taladooduna ay tahay aasaaska iyo gundhiga taladooduna ay tahay Soomaaliya mid ah Soomaaliya dimuqraadi ah Soomaaliya dawladnimo wanaagsan ee ka ansaxday dad badan ayaa naga maqan intaan iyo in u dhow midna maahin oo ama dalka ku firsan oo ku kala maqan ama dibadda ku maqan oo aan maanta fursadan aan u xoogelin waa waxa aan rabno inaan ka shaqeyno bilaha soo socda si aan dadkaas walaalaha ah oo dhan aan isugu keenno maalin maalmaha ka mid ah xamar magaala madaxda Soomaaliya oo xisbigana xaruntiisa magaala madaxda laakiin macnaheedu xisbigan inuu yahay xisbi madax ka nool ah oo xamar leh ka jiro inuu yahay ma xisbigan waxa rabnaa jamhuuriyadda oo dhan deegaan kasta iyo meel kasta oo jamhuuriyadda kamid ah dad xisbigan ka tirsan oo ku abtirsada oo aaminsan mabaadidiisa inay joogaan aan rabnaa waxaan u taaganaa ka wada shaqeynayna waa intaas mar kale waa idin mahad celinaa aad iyo aad waxaan idinka codsanaa in hawl aad iyo aad u adag mas'uuliyadda maanta aan qaadnay hawl aad iyo aad u adag waa ammaano waaye ammaanadaasi in aan u istaagno hawl loo deyn ma qabsoonto inaan marka qaarkood hawlo kale oo aan leenahay oo ama hawlo siyaasadeed ah ama hawlo masaalix dhaqaale ah ama hawlo masaalix family ama beelad ama safarada qaarkood inaan intaan ka gaabsano hawsha xisbiga awgeed
aan u soo istaagno habeen iyo maalin aan u taagnaana nalaga rabaa oo keenii cudurdaar lana cudurdaar intaan siino intayna kale shaqada aan qabanno dadka Soomaaliyeed maanta iyo maalinta Khamiista ee soo socota marka ay maqlaan rajo expectation rajo wax la yiraahdo dadku ku abuurmay rajadaas inaanan ka gaabina meeshii loo filayay dadka soo baxay inaan noqdo oo rajada dadka rajaan abuurayna rajadaas aan abuurnay in aan ka soo baxno oo aan wax qabadkeedii la nimaadana laga rabaa laakiin aanan noqonin bootin libaaxle kuftin sagaare inaanan noqonana laga rabaa dadka meeshaan fadhiyo iyo in badan oo kale oo ka tirsan saaxiibadood iyo muxuu ku ra'yiga oo maanta aan la joogin waa hubaa in ay wax yaani si rasmi ah isbedel muuqda oo siyaasadeed iyo dhaqan cusub oo siyaasadeed dad abuuri karo curin karo dhalin kara ayaa meeshaan maanta fadhiya ka irkeena iyo iska warqabkeena iyo dadaalkeena wada jirka aad iyo aad u mudiya mar kale waa idin mahad celinaa hawli waa noo dhiman tahay albaabkii aan maanta ka soo galnay gurigii dhexdiisa la dhisaayo wali waa noo dhiman yahay hawshaas aan u diyaar garowno dhafar badan iyo soo jeed badan oo aan xoog iyo xoolo isla socdo ah xisbigani ma rabno inuu noqdo man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraaruhu qofkaan quudkiisa kari karin qaraarkiisa ma laha qofkii quudkiisa yaa qaraarka u leh inaan noqono ma rabno xisbiga annaga iskale fikir annaga aan leenahay inuu xambaaraan rabnaa marka xoog oo aan ku meel marino waa sida kaliya ee wax macno lahoon raalli ka nahay annaga haddii kale qofkii wax ku siiyaahay ajanda uu leeyahay iyo fikir uu leeyahay miduu diidan yahay oo adigu aad lahayd oo aad rabto kaa qabsado kaa reebo ama mid aadan qaadi lahayn shalaba aad ka soo tagtay yiraahdo ma kan anaa watay iigu dar meesha ka fursan maysid haddaad xoolo islaameed aad ku haminaysid waliba xoolo ajnabi uu leeyahay haddaad ku haminaysid ha ku haminina waa karnaa awoodeedaan leenahay waa haysanaa laba siyaabo mar waaye waxaan haysan inaan bixino marka kale waaye ee meeshii xoolo u baahnaa lahayd xooggeena iyo dadaalkeena iyo juhdigeena inaan ku badbaadino haddaan qof khabiir ah raadin lahayn oo lacag sii lahayn dad khubaraha xisbiga ku jooga dadkaas inuu isu istaagaan annagaa qabanayno howlaha xisbigeena ay dhahaan oo aanan u baahanin inaan qof khabiir aan soo kirayno haddii maxaan ku idhahdaa la qabanaayo hawshaan la qabanaayo yaa qabanaayo inteenaan hawsha qabanaysaa bixinayno bishii qaaraankii waa kanaa sanadkii qaaraankii la iska rabo waa kanaa dadka hebel iyo hebel iyo hebel anaa aqaanay meel hebel anaa degaan hebel anaa dadka tagayo oo kusoo dhiirigelinayo oo tusayo muxuu ahay waxaana laga rabaa inaan xooggeena iyo xoolaheena isu geyno sidaas oo keliya ayaa ra'yigeena iyo taladeenna ay ku meel mareen haddii kale ra'yigeena taladeenna ma meel mareyneen waxaan noqonaynaa dad xambaarsan ra'yi iyo tala dad ay leeyihiin dad xambaarsan oo wadanahay waana lagu fashilaa laguma guulaysto taas annaguna waxaan u taaganahay karaamada dalkan iyo dadkan iyo diintooda in ay soo noqotaan rabnaa oo ay meel cad soo istaagto oo Soomaaliya waa dhaqaaqday la yiraahdo oo laga hor imaan karin aad iyo aad ayaan markale idinku mahad celinaa insha Allah marar badan aan kulmi doonaa ka wada hadli doonaa qadiyado badan qofkii maalin la isqabto la isku qayliyo macnaheedu in la kala tagay ma afkaarta waa isku qabanaynaa waa ku doodaynaa waa muxuu ahay ku dagaalamaynaa dhaxdeena laakiin haddana meeshii loo bataan raacayna dadka inta dooday ee meeshii joogta u bataan raacayna waa laga yaabaa ra'yigaaga laga tagay inuu kii saxda ahay waa laga yaabaa laakiin waxa muhiimka waxa waaye ra'yigii saxda ah in la qaado waayo dadkuna ay isdiriraan oo iskhilaafaan mushkiladda laga cararaayo dadka inta badan meesha ay jiraan hal aad la leeyahay waa sidaas laakiin garawshiyaad helay ixtiraam gaar ah helay ra'yigii shalay uu noo keenay hebel ama heblaaye ay noo keentay aan diidnay kii saxa ahaayo ahay maalintaas wixii ka dambeeyay in aad laakiin haddaad maalinta dadka ka carabto tiraan ra'yiga dil diiday meesha maxaa ka jeedaa waxa waaye dhibaato meesha ka timid waaye mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin waa joognaa waa shaqaynaynaa waxaan rabaa oon idinkaga mahad celinayaa mas'uuliyadda aad ii dhiibteen iyo ixtiraamkii qadaridda waxaanan idinka codsanayaa culayskeeda in la ila qaado oo la ila shaqeeyo si guulka ma dambaysaan u gaaro aad iyo aad u mahadsan